dunida xilligan waxa ka go'an in Soomaaliya ay ka hanad qaado dawladnimo taabagala geediga dawladnimada Soomaaliya kolka laga yimaado isku dayadii ka horeeyay sanadkii 2012 waxa intii ka dambeysay soo socday sidii hayaanka dawladnimo hana qaado noqon lahaa waxa loo guuray nidaam federaal ka soo daneeyayaasha Soomaaliya iyo siyaasiyiinta Soomaalidu bay isku sii waarkayeen inuu noqon karo xalka kaliya ee meesha ka saari kara siyaasadii qabqablayaasha iyo fikirka diinta islaamka lagula soo dhuuntay kadibna lagu halaagsamay madaxweynihii hore Soomaaliyada federaalka u guurtay mudane Xasan Sheekh Maxamuud xilligiisii ayuu ahaa waqtigii la sameeyay maamul goboleedyada kuwaasi oo ka koobnaa 5 maamul goboleed oo kala Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Puntland waxa soo baxday arrin cakis ku ah kadib yagleelidii ujeedadii loogu guuray federaal isla markaasina caqabad ku noqotay inuu midho dhalo macnihii weynaa ee salka ku hayay ka taqalluska siyaasadii qabyaaladu shacabka u ahay iyo tii cadaawaha diinta soo hulaabtay dhiigga shacabka ku xalaalaystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu waajahay marxalado adag oo kaga timi dhinacii madaxda maamul goboleedyada waxa dib u abuurmay sawirka foolxunkii laga guuri rabay waxa qarka loo jirsaday in la galo geedi kale oo ummadii kub iyo bowda kaga jabto warbixintan waxaynu daaha kaga qaadaynaa xaqiiqadu waxay tahay halka laga kicila yahay halkii laga dhaqaaqi lahaa waxa loo dhaqaaqi waayay waxaynu kala warbixinteenan ku iftiiminaynaa khilaafka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada federaalku muxuu salka ku haya ma madaxda haatan talada haysta ayaa ah kuwa iyagu doonaya inay burburiyaan maamul goboleedyada mise madaxda maamul goboleedyada ayaa ah kuwa gebi ahaanba ka dhan ah dawladnimada lafteeda aasaasihii nidaamka federaalka Xasan Sheekh Maxamuud aan dib u milicsano wixii ku dhacay yay ahaayeen shakhsiyaadkii uu ka dhaqaaqi waayay isku daygii madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ee geediga federaalnimada kadib kolkii uu hirgeliyay nidaamkaasi maamul goboleedyada caqabadii u horeysay ee ka hortimi waxa hormuud ka noqday madaxweyne Axmed Madoobe si mar kale dawladda federaalku uga shaqeyso inuu Jubbaland madaxweyne ka noqdo waxa uu sanadkii 2013 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka ballan qaaday haddii la doorto inuu qayb ka noqon doono dhismaha dawladnimada iyo waliba rabitaankii Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa ciidamo heer federaal ah iyo xoreynta Jubbooyinka kadib kolkii doorashadii Jubbaland ee waqtigaasi lagala shaqeeyay sidii uu soo bixi lahaa waxa nidaamkii Xasan Sheekh Maxamuud garwadeenka ka ahaa bilaabeen dhismaha ciidamadii federaalka taasoo tijaabooyinkii dhismaha ciidamadaasi ee dawladda dhexe ka amar qaata Xasan Sheekh Maxamuud ka bilaabay maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu Kismaayo u diray waqtigaasi wasiirkiisa gaashaandhigga ee dawladda federaalka si uu halkaasi uga suurtageliyo dhisidda ciidankaasi wasiirkii gaashaandhigga oo xilligaasi ahaa Cabdixakiin Fiqi wuxuu tagay magaalada Kismaayo dhismaha ciidamada federaalka si uu Kismaayo uga hirgeliyo wuxuu shirar la yeeshay madaxda dhaqanka beelaha halkaasi degan waxaanu shirarkaasi kadib u hore ka bilaabay diiwaangelinta ciidamadaas waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii maaragtay ciidanka aan ugu sameyn lahayn dib u habeen iyo sidii ay xuquuqdoodana ay dawladda ugu siin lahayd waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo logistical supportiga iyo taakuleynta ay u baahan yihiin waxaan kaloo aad ugu wada hadalnay sidii loo dardargelin lahaa la dagaalanka al-shabaab iyo howlgelinta ciidanka oo dib loogu xoreynayo weli goobaha ay gacanta ku hayaan waxaana isla garanay runtii waxyaabo badan iyo qorshe badan oo aanu doonayno inaanu ku dardargelino arrimahaas aanu ku wada hadalnay Axmed Islaam Madoobe tallaabadaasi gebi ahaanba waa uu ka horyimid wuxuuna ka baxay ballanqaadkii doorashada ka hor ee ahaa in la helo ciidan qaran oo isku jira diidmadaasi kadib waxa Axmed Madoobe u duulay Nairobi Kenya tallaabadaasi oo filan waa ku noqotay xukuumaddii waqtigaasi ee Xasan waxay muujisay in hogaamiyaha Kismaayo Axmed Madoobe yahay caqabada ugu weyn ee ka hortimi nidaamka dawladnimada ee federaalka wasiirkii gaashaandhiggu wuxuu isku dayay inuu hawshiisa iska sii wato xarakada al-shabaab Kismaayo ayay gudaha u soo gashay warsihii wasiirku waxa ku habsaday dagaal al-shabaab Kismaayo dhexdeeda kula dirirtay
taasi waxay mar kale daaha ka fayday in Kismaayo ciddii Axmed Madoobe raalli ka ahayn ay khasab tahay in kooxda harakada al-shabaab ay gudaha Kismaayo ku kulmaan dagaalkaasi iyo sababihii keenaya sidii shabaab Kismaayo ku soo gashay waxa magaalada Nairobi isla waqtigaasi wax lagaga weydiiyay Axmed Madoobe waxaanu dagaalkaasi ku sheegay in wasiirka gaashaandhigga mas'uul ka yahay oo uu Kismaayo ka bilaabay dhismo ciidan iyo shirar aan loo baahnayn dib aan ugu noqono dagaalkaasi khasaaro uu keenay dhimasho dhaawac iyo hantiba iska leh sababtoo waxaad garanaysaa dad aan ka naxaynin dadka marka ay hawshii la kuleeyihiin dhibaatada iyo khasaaro way sii badanaysaa al-shabaab ninana lama jiraan ninana uma turayaan dadkaas oo dhan shabaabka iyo kulli waxay ku yimaadeen shaqo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka uu ka waday magaalada Kismaayo oo ahayd inuu qawayladiisi ula shiro oo ilaa dagaal hadal isu imaada hal isu yimaado waa ka dignay dhowr goor hore ee dadkii uu markaa wax badan oo u jeedinayo ansaxay isugu yeerayo hatta kuwa ciidamada uu dhex galay oo leeyahay reebel wiilashina la soo baxa waxaan idin qabanayna reebel wiilashina la soo baxa saasaan idin yeerayna qabiil loo geliyo in badan oo maangaab oo saxooda si loo khalday oo badan oo isleeyahay mas'uuliyadeeda lagama wadaagayna wasiirka gaashaandhigga iyo dowladda federaalka iyo tiimka ay soo dirtay asaaska shabaabku ala cilmin bay ku soo galeen iyadoo la ogyahay waxa kale oo idin sheegaynaa inayna jiri doonin qori dambe oo aan dowlad goboleedku lahayn inuuna ka sii jiri doonin haddii ilaahay yidhaahdo deegaanka Sheekh Axmed Madoobe xilligaasi wuxuu ka baxay ku meel gaadhnimadii 2 sano ahayd wuxuuna ku guuleystay mar labaad in loo doorto madaxweynaha Jubbaland intaynaan u gudbin dariiqii cusbaa ee uu jeexay si dawladda dhexe lafteedu uga amar qaadato balaan dib ugu noqono Axmed Madoobe iyo ballanqaadkiisii golka 4 sannadood la doorto iyo bishii Abriil 2013 waxaa ka mid noqon doona barshabaab horta in waddanka inta kale laga xareeyo qodobka labaad gobolladani waxa ka soo baxay Soomaaliya oo dhan buu ku filan yahay inay baahida dadku ka baxaan haddii ilaahay yidhaahdo ay Soomaalida kale waxay gaarsiin karaan gaarsiiyaan ta saddexaad in la helo waxa ugu muhiimsan ee aan isleeyahay waad ku faani kartaa waxa weeye xuquuq loo siman yahay oo qof kastoo muwaadina oo deegaanka ku nool uu u siman yahay oo waxa uu xaq u leeyahay inuu helayaa oo maanta kabaajuunka iyo kabantuuga iyo hebelka iyo nin walba intuu soo sharaxo uu sidaa u heli karayo tallaabadaasi Axmed Madoobe ku dhiciseeyay isku daygii dhismaha ciidamo heer qaran kadib waxa uu u kaba iliday sidii uu u yagleeli lahaa awood ka sarreysa tan dowladda dhexe taasi oo uu ku mideeyay madaxdii 5 maamul goboleed sanadkii 2014 bishii January 23 ayaa Axmed Madoobe socdaalkiisii u horeeyay awood goobid uu ku tagay magaalada Garowe halkaasi oo ay madaxweynihii Puntland gaas iskula qaateen qorshihii uu la tagay sanadii 2015 ayay u suurta gashay in madaxweyne Axmed Madoobe ku guuleysto inay 5 madaxweyne ee maamul goboleed uu ka mid yahay iyo madaxweyne Xasan Sheekh ay ka wada arrimiyaan Soomaaliya arrimaha dibadda iyo kuwa gudahana isku si ugu wada taliyaan waxaana taasi keentay inaanay dhicin tallaabo aanay ogeyn inuu qaado Xasan Sheekh Maxamed shirar 6 madaxweyne oo garbahoodu siman yihiin ayaa dhacay kuwaas oo hadba meesha madaxda maamul goboleedyadu rabaan lagu qabto Garowe Kismaayo Baydhabo dadweynaha Soomaaliyeed nidaamkii federaalka oo rajo laga qabay noocaasi kolkuu noqday wuxuu ku riday kalsooni darro xooggan beesha caalamka iyo daneeyayaashii Soomaaliya waxay ku noqotay ka daro dibida Xasan Sheekh waxa uu muddaxileedkiisii kaga dhammaaday qancinta 5 madaxweyne oo yaan la dhaqaaqin heshiis ku ahaa kuwaasoo badhkood ka amar qaadanayay dowladda shisheeye kadib doorashadii 2017 uu talada Soomaaliya kula wareegay madaxweynaha haatan talada haya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre waxa madaxdii maamul goboleedyadu dooneen mar kale inay u suurta gasho ku arriminta awoodda dowladda dhexe taasoo noqotay mid u cuntami weyday madaxweyne Farmaajo waxay madaxdii maamul goboleedyadu bilaabeen halkii xilligii Xasan Sheekh ay ka ahaayeen wada tashiga
inay ku dhawaaqaan gole cusub oo maamul goboleedyadu ku midaysan yihiin waxaa timi inay xidhiidhka u jaraan dowladda federaalka waxaa dhacday in uu buro isku day kasta oo dowladda dhexe ku doonaysay inay xal ka gaadho khilaafkooda tallaabo kasta oo ka dhan ah dowladda federaalka oo madaxda maamul goboleedyadu qaadeen waxay la midab noqotay dib u curasho mar kale iyo qabqablayaashii oo shaambada sita shariif sakiin iyo xaaji xaaf dadaal dheer oo dowladnimada dib loogu yegleelayo kadib waxay macasalaameeyeen masraxii caqabadaha dowladnimo lagu curin jiray hase ahaatee axmed madoobe weli maya jubbaland waxay noqotay sacuudiga afrika oo ciddii isaga ka aragti duwanaata waxa uu ka tarxiilay kismaayo sharcigii iyo dastuurkii oo dhigayay inaan 2 jeer ka badan aanu qofku madaxweyne isu soo taagi karin wuxuu la mataanay dastuurka Jabuuti oo ma saddexaad ayuu intuu furtay weli taagay 8 sannadood islaam axmed talada hay ma jirto hal tuulo oo xarakada al-shabaab uu ka saaray wuxuu sadhistay ciidan u muuqda amniyaadkii axmed cabdi godane oo isaga kaliya ka amar qaata kismaayo shaqo la'aanta iyo dib u dhaca kolka laga hadlayo waxay ka mid tahay meelaha ugu liidata Soomaaliya dekada kismaayo wax isbedel ah cid kuma sameyn axmed madoobe cidii ka aragti duwanaatay oo arko inay madaxnimadiisa carqalad ku yihiin ma jirto wax ka celin kara in kismaayo dhexdeeda al-shabaab u timaado waxa loo haystaa dad tiro badan oo uu muddada uu xilka hayay ka takhalusay kuwa uu naafeeyay oo nolol iyo geeri u dhaxeeyay dadka loo haysto waxa ugu dambeeyay Suldaan Rashiid isimkii lagu magacaabi jiray ee 7 ka hor halkaas lagu dilay iyo suldaankii beesha jareer weyne oo isna ka sii horeeyay labadaasi isim oo kamid ahaa madaxda dhaqameedka ka soo horjeeday inuu sii horjoogo waxa uu duusiyay xuquuqda dadkii kale ee Kismaayo dhashay axmed madoobe يعني sidoo ehel u ahayn ama sidoo ma taqaana qof ihsaan la u ahayn ama sidoo u ahayn qof ballan u ahayn dadkii la shaqeeyay oo dhan inuu dilay nin magaranaysa oo dhaawacay sidoo kale ama rag kale oo ilamida oo had ilaahay uu nabadbaadiyay rag ka cararay rag magaranaysa iska jiifo ma taqaana baalkii ah ee kulligood wada yihiin laga soo bilaabo maalinka bilowna ilaa maalinka maanta aniga waa kan ku sheegay oo dhaawac uu gaarsiin ilaahay baa badbaadiyay waxaweyaan aakhirka ka soo noqday waa la sunti uu sameeyay iyo dhaawac uu geystay weeyaan innocent baan ka ahaa qaafil baan ka ahaa midda cadu oo bagaraysa walaalkeen noodii laakiin dhibaatadaas hoos iga baleeyay inaan hadalno danta ayaan ugu qasbayso mar haddii xildhibaanada Soomaaliyeed matalaad ayaan ku joognahay matalaadii ay wax ka qaldamaan أولا شعب الصومالي مركز أي جوجا وكرال جرينا يا حلبانة سيدا محوها إن لعنتا وتاجري أحمد مدوب وأخف محوها أمدي الصوماليات حقوق دي بابية كتنتي نك وجد بهذا الوجود اللي هو هاي سلطان رشيد عمر رشيد محوها سلطان رشيد عمر الوجود اللي رشيد عمر الوجود اللي محوها مقالة كسمايو السلطان كي بله جرير وين أو كسيوري سلادين كلنا محوها أي هوري لوج صوت رحيلي يدد وحق الله أو Soomaaliyeed intaasna waxa ku dhigay ay yihiin Axmed Madoobe waxa soo idlaatay haatan gabaadkii maamul goboleedyada iyo isxulufaysigii Axmed Abaanduulaha ka ahaa waxaan muuqan in xaalka doorashadu aan ahayn mid u soconaya sidii saaxiibadiisa Kenya ay rabeen Axmed Islaam Madoobe wax kasta oo ay ku qaadanaysay wuxuu ku bixinayaa sidii uu mar saddexaad u sii ahaan lahaa madaxweyne wuxuu samaystay madax dhaqameed badankoodu cusub oo xataa qaarkood ay yihiin ciidankii isaga ilaalinayay xildhibaano daacad oo ah iyo guddi uu ugu yeedhay komishanka doorashooyinka u qabanaya taasi bedelkeeda daneeyaasha Soomaaliya dhismaheeda waqti badan ku soo bixinay waa beesha caalamka ayaa si naba ka siisan la umuhashada mar kale inuu istoorto dhinaca kale intuu dhistay in leeg oo xildhibaano madax dhaqameed iyo komishan ah waxa ayana dhistay murashaxiinta uu u diidan yahay inay la tartamaan oo doonaya haddii uu istoorto inay iyana istoortaan
dib aan ugu noqonay Axmed wuxuu uga cabsi qabaa inuu qabto doorasho xor iyo xalaal ah oo dunida dimuqraadi ka tahay 7 sannadood ka hor maanta oo kale aan dib idiin celiyo أنا waxaan isleeyahay waxa ugu weyn isleeyahay waad qabanaysaa kaabayaasha dhaqaale la dhisayo waxbarashadii noloshii asaasiga ahayd caafimaadkii qodobka labaad gobolladani waxa ka soo baxay Soomaaliya oo dhan buu ku filan yahay inay baahida dadku ka baxaan haddii Ilaahay yiraahdo ay Soomaalida kale waxay gaarsiin karaan gaarsiiyaan ballanqaadyadiisi beerihii ma jiraan wax soo saarkii mooye al-shabaab iyo jubbooyinkii laga xoreynayay ha jooge inta la xasuusto 2 jeer oo Axmed federaalku doonay inay ciidamo loo dhiso iyo mar kale oo doorasho xalaal ah in la qabto la doono al-shabaab Kismaayo ayay soo gashay oo marna dagaal kula gashay wasiirkii gaashaandhigga xilligii Xasan Sheekh mar kalena qarax ka fulis mar kale aan ku noqonay dadka siyaasadda ka faalooda ayaa cartanka iyo kursi isku sii dhajinta heerkaasi gaarsiisan waxay ku fasireen inay la mid tahay sida aadamuhu u necab yahay in nafta laga qaado bal haddaba iyana aan dib adin xasuusiye Axmed Madoobe sida uu u diidan yahay saaxiibadiisii sala soo dhisay oo doorasho u taagan inay la tartamaan iyo 6 sannadood ka hor haddii la doorto inaanu mar dambe soo noqonaynin ballanqaadkiisii ka aadana marka intaas oo dhan laga soo tago laakiin anigu shayga ugu muhiimsan waxa weeye waxaan rajaynayaa doorashada ku xigta in uu ku guuleysto in reer goleed oo weligiiba xataa aan soo istaagin wadada oo loo diidana oo markay noqoto sanduuq cod lagu ridiyo inuu rideen oo waliba bannaanka wixiisa Kismaayo shacabka ku nool waxay soo weheshadeen muddo dheer nolol silic iyo saxariir u badan ma ay helin warbaahin u hadasha Axmed Islaam Madoobena waxa uu noqday مسؤول الشباب أي اسكو ساقين أنا إذن هقامينيا إذن هقامين ميست بلس إلى يومات أي كسيمينهم فعل كأه أن أني بنور هذا إذن كنا حبالة